gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ka qayb galay mashruuc lagu dhisayo ama laga hirgelinayo korontada magaalada xeebedka aadku qadiimiga ah ee Hobyo. Baashe Cali Xaashi ayaa qodobkan sii dheereynaya. munaasabadan xariga looga jirayay mashruuca koronto ee shirkadda Geeko ay ka hirgelisay magaalada xeebedka Hobyo waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Mudug Mudane Cabdiraxmaan Cali Diiriye, gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdiraxmaan Cali Diiriye gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ku booriyay shaqada shirkadda Galmudug Electric ee korontada ay u hayso muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Geeko ee gaalkacyo si fiican uga shaqeysay ilaa bandiirada gelin soo gaadhay ceelguula iyo Hobyana hadda shaqo ka wada ganacsatada iskare. waxaan idin leeyahay guuleysta dadaalka adeeganka waxay si loo jibaara annaga ka maamul ahaan heer degmo heer gobolna waa idin soo dhaweynaynaa. wax caqabada ee maamul ah kala kulmaysiina ma jiro. deegaankuna wuxuu leeyahay waa asaga u baahan waayo biyaha si loogu baahan koronto loogu baahan. Qorona Xundubey oo ku hadlayay magaca Geeko ayaa yiri korontada wax ka mid tahay waxyaalaha magaalooyinka kobciya ganacsiga kor u qaada. marka koronto tayo leh oo 24 saac baan wadnaa dadkiina waan la wadaagnay laga bilaabo saakana waan shidnay. aad baan u mahadsantihiin gudoomiyaha degmada horumarinta ka wadaan deegaanka. dadka ganacsatada waxaan leenahay magaalada waa in la maal geliyaa. dadkii mar haday joogaan oo iyagii ku nool yihiin ganacsiga ayaa wax laga rabaa inuu qaato magaalada faa'iidaha ka hel ama uu ka hel laakiin waxa la rabaa in meeshii wax laga bedelo. aad u mahadsantihiin. qaar ka mid ah bulshada Hobyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen helitaanka koronto ayna soo dhaweynayaan. magaciisa Shariif la dhahaa waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Hobyo. waxaan ugu soo siyaaday shirkad Geeko Soma aan ugu soo siyaaday aad u mahadsan maadaama awalna koronto ugu jirto laakiin mid ka sii quwad weyn ay noo timid aad baan u soo dhaweynaynaa waana mahadsan yihiin. ganacsatada kale inay ku daydaan Geeko oo horumar dhinaca korontadaas keentay waxyaalaha horumarinta ay ka mid tahay korontadu oo dadka iyo dalku u baahan yahay. waa shirkadii u horreysay wax la yaqaan ka hirgelisay korontada. marka ardada ku nool degmada Hobyo waxaan sheegayaa baahi oo ku qabnay korontada. casharada waxaan lagu dhibeen faynuusa ku daara jirnay. Baashe Cali Xaashi raadiyaha iyo telefishinka qaranka Hobyo. haweenka iyo qaar ka mid ah ehelada dhalinyaro in ka badan 10 sano ku xiran dalkaasi Cumaan ayaa ka dhigay